dadka ka soo qayb galay waa inay ahaadaan dad bulshada wax ka bedeli kara bari qofku takoobaad shuruud waxa weeyaan qof waa inuu aqdiyad lahaado oo damqasho lahaado oo dadku u sinaadaan isla xisaabtan baa guul lagu gaadhaa haddii meesha isla xisaabtan ka baxo wax guuleeyo xeero la gaadhay totally ma jirto in macnaha nacam dhalinyartii gobolka ka soo jeeday beesha Ciise hayna inay macnaha nacam iyagoo shir abaabul yiraahdan annaga soo xisaabanayna horta aad baan soo dhaweynayna deegaanka maadaama oo shalay nacam ciidanka gaarku ilaalinayay maanta oo meesha ka baxay hay'adaha federaal ay ku soo noqotay in aan maanta qayb ka yeelana hadana waxa weeye oo ka qayb galana waan soo dhaweynaa dhana hadna ka qayb galna weey mukhtaar oo isagoo ka mid ah dhalinyarada loo xil saaray qabanqaabada shirka dhalinyarada beesha Ciise ayaa isaguna ka hadlay meesha wuxuuna yidhi sidatan waad mahadsantiin sidaad uga soo qayb gashay shirka magacaygu mukhtaar maxamed jaamac weeyaan waa gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada beesha Ciise waxaanu imanay walaalahay baa hore uga soo dhawaajiyay saddex arrimood baanu imanay waa mahadcelintii ay degmadani ka geysatay dhibtii ka dhacday gobolka City si aad aan ugu faraxnay inaan inigu mahad celinay aanu imanay koobaad talabaad hay'adaha nabadgelyada sidii looga qayb gali lahaa hay'adaha amniga in laga qayb galana waa wax muhiim ah waayo wadanku wuxuu galay xaalad sidii hore ka gedisan hawshaasina waxay u baahan tahay hay'adaha amniga inaan ka dhex muuqano dhalinyar ahaan sida hay'adaha markaan leenahay waa booliiskeena deegaanka in laga qayb galo federaalka in laga qayb galo militerka Ethiopia in laga qayb galo kuwa markaan ka dhex muuqano dad wadankii inkastoo ka tirsanahay dad wadankii danaynaya dantiis si aan u ahaano dhalinyarta waxaan ku boogaadinaynaa inay ka qayb galaan ciidamadaas xulashada sideen dhalinyarta ay u xulan lahaayeen soo xusha markaan niraano waa inaan nasiino sidaad ku xulan lahaydeen dadka ka soo qayb galay waa inay ahaadaan dad bulshada wax ka bedeli kara bari qofku takoobaad shuruud waxa weeyaan qof waa inuu aqdiyad lahaado oo damqasho lahaado oo dadku u sinaadaan talabaad nin wadananimo la waa inuu ahaado saddexaad dantiisa gaar ahaaneed nin ka horeeyay danta guud waa inuu ahaado nin diinta ku fiican oo dhaqan wanaagsan waa inuu ahaado hawlaha ku xulanaysiin intii wixii wanaageed ku taqaanin qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Dambaleed iyo waliba shacabka ku nool magaalada Dambaleed oo iyagu la hadlay wakaaladda wararka ee Siima waxaana hadaladoodii ka mid ahaa saatan wali marti sharafta noo timid iyo dhammaan shaqaalaha degmada ee ka soo qayb galay waxaan ku salaamay islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kulli ajendayaasha iyo qorshayaasha shir gudoonka noo wadaan mahadnaqa kulli sideedaan u qaadanay wixii mahadnaqa in sideeda loo qaato waa muhiim halkeegina laga sii wado wixii dhiirigelinaya isla xisaabtanka waa wax meesha ku jira kulli isla xisaabtanku meesha kama maqnaan karo waayo isla xisaabtan baa guul lagu gaadhaa haddii meesha isla xisaabtan ka baxo wax guuleeyo xeero la gaadhay totally ma jirto waan bogaadinaynaa in la isla xisaabtamo kulay shirgudoonka iyo xubnaha inoo socday iyo waxa weeyaan shaqaalaha kala duwan ee degmada Dambal aad baan salaamay waxaan salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kulli baad salaan walaalihiin waxay noo wadeen saddex qodob bay ahayd qodobka koobaad oo waxa weeyaan maxadcelinta waxa waan iga gudooni weeyii waxa ugu qaalisan waxa weeyaan dadaalka iyo shaqada iyo meesha taagantaa lagu mahad celiyay waa wax muhiim ah wata mahad celinta waxa waan iga gudooni weeyii talabaad waxa weeye tan xaaladda waan ognahay xagga socoto
hay'adaha amniga xagga socdaan isbedelka dhacay la soconaa taana waxa weeye deegaanka maadaama oo shalay nacam ciidanka gaarku ilaalinayay maanta oo meesha ka baxay hay'adaha heer federaal ay ku soo noqotay in aan maanta qayb ka yeelana hadana waxa weeye oo ka qayb galana waan soo dhaweynaa dhana hadna ka qayb galna weeye takale waxa weeyaan iyaduna shirka iyo waxa weeyaan qiimeynta waan soo dhaweynaa in waxa weeye la isla xisaabtamo waxa weeyaan dhalinta beesha si gaar isku xisaabtamaan maadaama ay gudihii yihiin waxa weeye gurigu waxa weeye hidee dhaqankii wuxuu ahaa daad iyo duc baa la yiraahdaa weeye waxa weeyaan qaybahan kale baa la ducdi weeye horta gudihii in la hagaajiyo oo la isku xisaabtamo xanta waxa weeye wayna soo gaari jirtay waan xanta waan maqalnaa oo dad isdhex yaala oo soo baanahay in isla xisaabtamana soo dhaweynaa anaguna waxa weeyaan kulay fikir iyo maal iyo waxa weeye nafba horena waa loo gashay degmada Damaleed ku ammaanantahay xubnihii ku shiiday gobolka galeen degmada qori iyada oo waxa weeye difaactamaysa waxa weeye ku dhimatay bay ahayd loo degmooyinka qaar ku xamalnay inay soo yaaceenba Damaleed waxa iyada oo waxa weeye difaaci ku jirtay ay ku dhimatay inta noolna ay kaga soo baxday taana waxa weeye mid aan degmooyinka kaga hornay bay ahayd oo guul oo anagu leenahay imkana sidii u baan uga horeynaa weeye dib u baxayno tan kale waxa weeye xubnaha kalena la soo xulay 12 iyo 3dana kulay waxa weeye dhalintu ay joogtaa iyaga soo xuli doona aad baan soo dhaweynaa wad maasantiin awal ilaahay ma askale xagan soo keenay inuu shirkeen noo qabsamo mahad celinta iyo guwaabada iyo dhiirigelinta isugu jira xubnaha guddigana markooda aad baan soo dhaweynaa waxaan soo dhawaada horta ta kale horena taqaanaa ilaahay ma hadle in maanta dad xagan isugu imaano cid walba waxay qabatay lagu mahad celiyo oo waxyaabaha ma taqaanaa dadka wanaagsan lagu garto arda kulli waran dambal ciisiisa maran badegan xaqada maran ka xaaladaha galbeedna cid kasta way ka dhirsantaa hadda ka hor anagu dambal ahaan arrimaha galbeedka warbarta kamaan aan jirin xaqada marka laga hadlo intii dambe laakiin waxay gaadhay ilaa heer reer dambal dadka ugu badnaa ku dhintay noqdaan waxyaabaha taqaanay marka in isbedel wax kasta laga muujiyo waxa qurux badan in inta kala soo hor fadhiiso laga warramo waato aad arrin qurux badan in macnaha nacam dhalinyartii gobolka ka soo jeeday beesha ciise hayna inay macnaha nacam iyagoo shir abaabul yiraahdo annaga soo xisaabineynaa horta aad baan soo dhaweynaa marka waxa taqaanay shirkaas la xisaabtanka dhalinyarada beesha ciisana horta aad baan soo dhaweynaa inagu marka soo xisaabisan anaguna taageeran la garab taagana waxa weeye ma taqaanay maadaama shirka dhalinyarada ka soo qayb galayso kulli cid kasta way isku taqaanaa cid marka 12 ka dhalinyarada shirka ka soo qayb galayso kulli annaga saaysa garanay cid kasta urur bay hoos yar leedahay ma taqaanay kulli maadaama dhalinyarada ay wada joogan iyaga hor dib isku noqon iyaga xubno saddex xidhoor marka iyaga indii soo diray annaka marka ka samaran ahaan marka noqotana xubno kulli xaggan joogan ma taqaanay magacan leeyno qori iyaga kala soo xidhan insha Allah shirkan aad baan soo dhaweynaa waa maasantii bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xuseen Cabdi Maxamed Xuseen Haari al-Adaala waxaan ka mid ahay dadka degan magaalada Damaleed shirkan saaka noo qabsoomay waxa noo imatay qolo dhalinyaro oo ka socota Dirdhawa shirkaas oo wacyigelin dhalinyarada beesha ciise shirkaas si fiican buu noogu qabsoomay dhowr qodob baan ka hadalnay bahayd mahad celin dadkii maadaama dambal ay si fiican uga qayb qaadatay arrimaha galbeedka qaar dad ka mid ahina ay ku dhinteen dacdooyinkii ugu dambeeyay ee qolyaha canfartu ay soo qaadayeen sidaas daraadeed waxa shirka May 30 ka dhici doona Dirdhawa markaas dhalinyaradii ka qayb qeeli lahayd inaan xullo ay gudinayeen noo keeneen si fiican waa noogu qabsoomay shirkaas sida daraadeed waan u diyaar baan u nahay waxaan kula wacyigelinta noogu jirtay in ciidamada qaranka laga qayb qaato mar kasta Soomaalida waxaan nidhahnaa ciidan qaran baa naga heliyay ama wax laayay markaas waa ka qayb qaadasho la'aanta ciidanka sida daraadeed waxaan go'aansanay dhalinyaro ahaan la go'aamiyay in laga qayb qaato ciidankaasna si bari toole aan ugu yeelano saraakiil wax amarta ayaan markaas Sima TV oo iyadana TV caalami imika noo noqday oo noo soo gudbiyo xogaha aan uga baahanay galbeedkana waan u mahad celinaynaa si ay wararka ay nagu soo gaarsiiso waan ku tala jirnaa inaan la xiriirno hadeeta iyada lafteeda aan ugu gudbino warbixinada sidaas daraadeed shirka saaka uu noo qabsoomay qoladuna waxaan u dhisaynaa hadda 12 xubnood 9 raga
iyo gabdho maxaa 3 gabdhood ayaan haddii ilaahay idmo aan sameeynaa markaas Sima TV-na waan u mahad celinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guud ahaanba barnaamijkeed kala socoteen Sima TV intaas oo naga dhanyahay intaan barnaamijkiisa xog ku kulmeyno nooli kulantay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh